case la xiriira mas'uul Soomaaliyeed oo ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda iyo maamulka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo taariikhdu markay ahayd 4 bishii April 2018 aan u soo gudbinay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mas'uulkaas oo magaciisu yahay mudane Mukhtaar Mahad Daawud ayaa sameeyay ku takrifal aanan wali wadankan ka dhicin isagoo ku xadgudbay sidaan hore u sheegay shuruucda u degsan maamulka maaliyadda khaasatan dakhliga wadanka u soo xaroodo iyo sida loo maamulo iyo midka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sida aynu u shaqeyno una macaamiltano hay'adaha dawladda sidaad la socotaan la dagaalanka musuqa ku xadgudubka hantida ummadda waa mid ka dhan ah labadan xafiiska hantidhowrka xafiiska xeer ilaaliyaha waana mid madaxdii sare ee wadankana ay taabteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha labadoodaba sida awgeed case-kan waxaan soo gudbinay taariikhdu markay ahayd 4 bishii April 2018 la dagaalanka musuqa lunsashada hantida qaranka iyo ku takrifalka shuruucda dalka u degsan waa mid aan marnaba loo dulqaadan doonin haddii alla idmo